waxaan ka nimid dalkanagii iyo dhaqankanagii iyo diinkii toosnaa oo dhulkanaga yaalay. waxaan nimid meel aynaan dhaqan aqoonin oo diinkii anagu aan naqaan aan laga aqoonin oo na bedelaysa runtii haddaynaan anagu ku toosin dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa laasim noo ah runtii inaan ilaahay ka baqno subxaanahu wa tacaala oo aan diintanadii iyo iimaankanagii ku dadaalno. inta aniga ii muuqanaysa waxaan u malaynayaa dhallinyarada iyo dadka dhallinyarada cuslaatay waxaa badan dhallinyarada ayaa badan, ayagaana khatartoodu badan tahay. horta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyowma tunsaa wakadalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaati rabbihi walacdaabu alaakhirati ashaddu waabqaa. sadaqa allahu alcadiim. ikhwata alkiraam, ilaahi wuxuu yidhi waman acrada can dikrii, qofka aniga xuskayga iyo diintayda iyo qur-aankayga iyo raacidda nebiga ka jeesta fa inna lahu maciishatan danka, waxaa u sugnaaday nolol ciriiri ah. noloshaa ciriiriga ah xataa qofka haddii uu yahay qof xoolo badan haysta oo caafimaad badan haysta, sida aad ku arkaysaan dadka loo raaxeeyey ee magaalooyinkan degan intooda badan, haddana nolol ciriiriyahay ku jiraan. maxaa yeelay mar kasta faqri bay ka baqayaan, mar kastana waxay ka baqayaan isbeddelka naftooda gelaya oo ama gabowga ah ama jirada ah iyo xanuunka oo u imaanaya. fii kulli saaca marka walwal bay ku jiraan ilaa ay gaaraan in aysan awlaadda ay dhaleen iyo waxa ayaga ilaahay ka beeray subxaanahu wa tacaala inaysan laxawsan ee ay laxawsadaan xayawaanaadka qayb ka mida. taa macnaheedu waxa weeye wixii ilaahay ku addoonsaday qofku hadduu ka tago, waxa ilaahay abuurtay kuwa ugu sii liita weliba addoon looga dhigaya oo ilaahay u addoominaya. maxaa yeele ilahay baa khalqigiisa xakuma subxaanahu wa tacaala. waxaa laasim marka nagu ah nolosha adduunka inaynan ku kadsoomin oo aanan ilaahay ilaawin subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahay qofkaas waxaan ku noolaynaynaa maciishata danka, nolol oo ciriiri ah ayuu ku noolaanaya. qalbiga ka ciriiri ah, shaksiya buu ciriiriyamaa, qalbiguu ka ciriiriyamayaa, meel walbuu ka ciriiriyamayaa. waagama harin wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa, qiyaamahana waxaan keenaynaa asagoo indhala. aayad kale ilaah wuxuu ku yidhi waman kaana fii haadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa wa adallu sabiila. qofkii adduunkan xaqa iska indhatiree ku indhala ee xaqa ka jeesta fahuwa fi laakhirati acmaa, aakhira ka indhala-aan badan yahay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. wa adallu sabiila, weliba wadana uu ka lamid badan yaho waddo uu ku hagaaga uusan helaynin. qofkii markii aakhira la geeyo adduunka asagoo la maamusay qof nool ahaa oo adduunka ku raaxaystay, hadhow waa cabanaya. qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira. ilaahayow maxaad ii keentay anigoo indhala oo ihaanaysan markaan ahaaday qof wax arkaya oo sharfan adduunka. ilaahay waa u jawaabay subxaanahu wa tacaala oo wuxuu yidhi kadalika atadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyowma tunsaa. amarku waa sidaasaa la yidhi. maxaa yeele aayaadkanagii baa kuu yimid caddaynaya waxdaaniyadanada iyo kalinimadkanaga ilaahay leeyahay.
iyo waxa aan adiga ku abuurnay oo cibaadada iyo ilaahay xasuustiisa subxaanahu wa ta'ala markaasaad halmaantay oo ka dhaqaaqday adigana maanta naarta lagugu halmaamayaa ilaahay leey waxaa loogu darayaa adiga kaligaa ma aha waa cid alla ciddii adiga wadadaada raacda markaasa ilaah wuxuu yidhi wakadalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaati rabbih sidaasaa lagu abaalmarinayaa ciddii xadgudubta oo aan ilaahay rumaynin subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa weliba cadaabka aakhiraha ka adayg badan oo ka baaqinimo badan baa layidhi dhibaato kasta ee ayada ka sokaysa cadaabtaas ka sokaysa oo dhan ilaahay mar kale wuxuu yidhi waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaanan fahuwa lahu qariin qofkii ka jeesta waa la mid oo shukran qofkii ka jeesta uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah raxmaanka xuskiisa iyo ilaahay ka baqidiisa subxaanahu wa tacaala nuqayid lahu shaydaanan ibliisan u dhiibaynaa u sallimaynaa le ama asagaan uga sabab yeelaynaa oo mar walbaba ibliisa gacanta amarkiisa ku wareejinaynaa u tawalinaya fa huwa lahu qariinun mid la socdou noqonayaa umuurtiisoo dhan tallaabo kastoo qaado shaydaanu kala tashanaya ficilba ficilka ka xun buu samaynayaa ictiqaadka midka kal ugu liituu samaynayaa diinka waa bedelayaa dadnimada waa iloobayaa sharafka waa ka tegayaa nolosha waa ka dhacaya waxaaba ka daran wainahum layasuduunahum can isabiili wayaxsibuuna anahum muhtaduuna leh waxay u malaynayaan horta waxay ka shaydaanku wuxuu ka jeedinayaa lir asaga iyo qolada jamaacadaas ilaahay wadadiisa wayaxsibuuna anahum muhtaduun weliba waxay u malaynayaan hanuunsan yihiin lir haddana oo saa keliya maana haddii shaydaanka iyo qoladiisu waddadii ay ka iileen hadduu baraarugsan yahay oo uu qabo inuu waddadii fiicneed ka leexday wuu soo waansami lahaa wayaxsibuuna annahum muhtaduun bur ilaahi subxaanahu wa tacaala oo weliba wuxuu isu maleeyaa inuu haddana hanuunsan yahay wayaxsibuuna annahum yuxsinuuna suncan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala mar kale waxay u malaynayaan inay hagaajinayaan shay wanaaga ay samaynayaan oo dulmigaasu weliba kusii indha adkaanaya marka waa khatar naftu iyo shaydaanku ma raba inaan mawduucaas ku sii sikado oo mawduucii aniga la iigu talagalay ma aha laakiin waxaa shay runtii xasuus fara badan qalbigayga iyo ta'ahiir ku sameeyey sheekha hadalkiisii nabigu wuxuu yidhi almowtu baabun wa kullu nnaasi daakhiluh mowtku waa albaab furan uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa kullu nnaasi daakhiluh dadoo dhanna waa gelayaan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wax ka maqnaanahaya lama arko ilaahna wuxuu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun uma inakum cinda rabbikum takhtasimuun nebi allow kuwan adiga kule waa naga dhiman doonaa warkooda iska dhaafe waad dhiman ayana way dhimanayaan hadhowna ilaahay agtii ubaa lagu xisaabtamayaa lagu doodi doonaa marka mar haddii wax kastaba mowt uuna hortaagan yahay cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba inaan isku ilaalinaa nagu waajib ah macmacaanka adduunkan inaynaan raacin baa nagu waajiba oo hadhow waa la shallaayi doonaa wa yowma yacadu daalimu calaa yadayh يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إلهي ساسي سبحانه وتعالى كشاكي مالك النبي الله قفك ظالم كهو قرين أيوه لبدي سقع موت قول لي هاي شلايقي محان نبي ودديسي وضعه قد قنواي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ورش الله تذيدي هلا جيجي محان هبل صاحب غدكت ها صاحبك حنوي وأدونك كل جوجا أو خيرك أن مرنا كتوسينين وح أون حن يوح شرعة كليوك هذا شيء كينيا
waxa yani niyada adduunyo kaliya umbu kugu baraarujinaya kaasaad saaxiib ka dhigatay hadhow marka shalay baa imaanaya shalaygu sii wadaya markaasuu wuxuu leeyahay laqad adallanii can adikri wuxuu iga lumiyey ilaahay xuskiisii iyo ilaahay xiriirkiisii bacda id jaa-anii markuu ii yimid ka bacdi maxaa yeelay haddee adduunkan markaad joogto ilaahay wuxuu kuu soo diray nebi subxaanahu wa tacaala nebigaa laguu soo diray markaasaa leeyahay maa jaa markaasay hadhow inkirayaanay leeyihiin maa jaa-ana min nadiirin nebi nooma imaan ilaahayna muxuu yidhi awalam nucamirkum fiihi wamaa nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa-akum nadiir miyaanan idin cumri siinin waktigii uu waana qaadan lahaa qofkii waana qaadanaya nebi digana suu idinma soo dirin baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala marka hadhow waxba ma tarayso calaacalkaas oo wax saxa ma aha walaalayaalow wadada nala ka rabo waa wadadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nafta in la soo dhoweeyo weeye dadkii caqliga lahaa way ka hadleen inna lilaahi cibaadan fudanan طلقوا الدنيا وطلقوا الدنيا وخافوا الفتنة إلهي وحنا الضوء ما أدو مسكح بدن أو دق بدن الدنيا فري صدح كل شيء كتوري وخافوا الفتنة هذا كعب صدي أيضا فتنة ذي مركا ضدكي أهل الله إذا أهل عقل أها الدنيا هو إسكعليين الدنيا أن إسكعلينا آخرنا أن استعدادنا أو أن دير قرون إلهي نستعصى ويديسني سبحانه وتعالى ولا ليال والله فكذي ولا فقادي توحيدك أن إلى لسنه الله كبقى أن إلى لسنه فعل كحن مارت الضلال كأنه أن أقولن أن إسكا إلى لنه بل يرى السيبة ضمانت أن إلهي سبحانه وتعالى وحي نور وينيا أن كشغينه إلهي أنه إلهامي intaas waxaan ku faraq dheeraysanayaa walaalkay Sheekh Cabdulqaadir mowduuciisii raallinaga ahaada haddii aan xoogaa mashaayikhdii u xiriirinaysay haddii aan dhex galay hawl aan la ii dirsan halkan waxaan iskugu nimid xabiibkanagii xuskiisa sallallahu calayhi wasalam nabiganagii maxamed ahaa xuskiisa ayaan isugu nimid نبيك صلوات الله وسلامه عليه إلهي مركو الله اللي وحيري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حتقول يا نبي الله هداد إلهي جعشهين فاتبعوني أنيق الراعة يحببكم الله إله بإذن جعلانا سبحانه وتعالى اتباع النبي wuxuu noqonayaa qowlan wa ficlan wa i'tiqaadan nabiga hadalkiisii baa lagu daysanayaa sallallahu calayhi wasallam ficilkiisii iyo wuxuu qabanayay xubnihiisu qabanayeen baa lagu daysanayaa i'tiqaadka iyo qalbiga wuxuu ka rumaysnaana waa lagu daysanayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa nagu laazim oo waajib nagu ah إن النبي نجي رات رعنه صلى الله عليه وسلم سيدا الصحابة النبي أرات راعي جرين نبي إلهي بعد شعلاده سبحانه وتعالى إلهي بعد أماني إلهي بعد شعلاده آيات القرآن كهو أمانة النبي محمد نتصيا أو رنبا إلهكو أمان وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمكم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلهي وحوك قد جيالي القرآن الكريم إيه حكمة مر وحا ليرادا مر عام على قدقها وحا ليرادا وحا الله وحي كلا ساري حقا إيا باطلك مرنا خاصة على قدقها أحاديث النبي قال قلت الماما حكمة مركي عام كتها إلى وحو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلهي حكمة وحو سياعده ودوره قفكي لسينا خير وين بالسي ولقد آتينا لقمان الحكمة
luqmaan alxakiim waxaa lagu tilmaamay in la siiyey xikmad. marka marna waa khaasoo waa axaadiista nebiga oo kitaabka markii lagu cadfo, kitaabkuna waa qur-aanka, xikmadana axaadiista ayaa mufasiriintu u badan yihin. wacallamaka maa lam takun taclam, ilaahay wuxuu ku baraa layidhi waxaadan oqoonin oo culuum ah ayaa ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala. wa kaana fadlullaahi calayka cadiima, fadliga ilaahay ku siiyana waa weynan badan yahay. haddii ilaahay marka fadligiisa mid weyn ku sheegay, annagu ma koobi karno marka nebiga sala allahu calayhi wasalam fadaaishiisa iyo wanaagiisa. ilaahay wuxuu yihi maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu walaki jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim. nebi allow waxyiga ka hor ma aadan ogeyn qur-aankan kugu soo degaya iyo iimaanka. hadde iimaanka nebigu ilaahay wuu rumaysnaa subxaana wa tacaala, laakiin oo weligii gaalnimo sooma marin. laakiin waxaa looga jeedaa yacni camalkan iimaanka qaabka yacni dadka loo gaarsiiyey iyo sida wax loo farayo iyo sida loogu camalfalkan tirada badane wanaagga badane aan ku siinay ma aadan oqoonin, laakiin waa nuur aan ku hanuunina ciddaan doon nuur ilaahi subxaana wa tacaala. wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim, waxaadna dadka ku hanuuninaysaa waddo toosan. adaa laguu doortaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. waddadaas wanaagsan inaad dadka ku hagto ood khalqiga ku hanuuniso ayaa ilaahay kuu doortay subxaanahu wa tacaala. marka waa wax dheeri ah oo ilaahay uu siiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam. marna ilaahay wuxuu yihi ina fadlahu kaana calayka kabiira, ilaahay fadliga uu ku siiyey nebi allow adiga nebi maxameda waa kabiir, waa weynan badan yahay. macnaa daalika taasoo dhan jeclaanta nebiga aada jeclaanayso waxa adiga kaaga horeeya ilaahay baa jeclaaday subxaana wa tacaala. rabbi baa jeclaaday, jacaylka marka kaaga kaasaa ka horeeyay. adigu marka addoonaad tahay ma'muuraad ku tahay marka inaad nebiga jeclaato, sidaasaad adigu ma'muur ugu tahay inaad jeclaato nebiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu yidhi wa rafacnaa laka dikrak. bismi illaahi raxmaani raxiim. alam nashrax laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم إن واسع قلبك قلبي واسع إنه وحيك حنباره ووعدك حنباره ودتك أجلع سناده وأمد مامله ودتك أن حريسته سو قلبك كما أنا نجي دنبي ودن بسول لقام الداين ودنبي الآن لقام الدين بإله إليه سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلهي سبحانه وتعالى. طيب مركز محاها دانا نقول سيدري ورفعنا لك الذكر وحان كرء قادني أديك الذكر قاقو لا إله إلا الله أيان محمد رسول الله كحريرني ومر أنا الله يمحصه ويري حديث إلهي كوي حديث قدسي معني سوها هذه كلام معي قالوا حسين نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سدرات يبقى قفكم مركو صوم مسلم أيوه لا إله إلا الله كليا لقمي إليه إنه محمد رسول الله قدر مويه ولله العزة ولرسوله. ساسا إلهي أقول الله رأي مقعيسا أقول طري إلهي بعزله رسول كيسا عزله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إلهي أطيع رسول كان أطيع ومن يطيع الله والرسول قفك إلهي أطيع رسول كان أطيع. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. عمل فرع إلهي بها أركي عمل كيني نبي محمد عمل كيني وأركي صلى الله عليه وسلم. haddaan nidhaahdo maanta nebi maxamed baa camalka naga arkaya maxaad u malaynaysaan? waaba nala ku gaalnimo xugminayaa dadka caqli gaabta ah maangaabta waa ku xugminayaanba. sababtay kuu xugminayaanba waxay tahay laba shay. mid waxaa weeye qofku bini aadamkaahu waxaa weeye iftihiisa waxaa ka horeeya cilmigiisa. haddii qofka iftihiisu ka soo hormaro cilmigiisa halaag ma horo. taa waa fahamteen. iftaa waxaa la yidhahdaa jawaabta masalada aad jawaabta
qofka haddaan xooga carabi ka dhigay inaad mas'alo ka jawaabto adugu oo aad tiraa mas'aladaasi waa xalaal ama mas'aladaasi waa xaaraam waxaa ka horeeya barashadaada cilmiga adiga ood cilmi baratid waxaa marka soo baxay in marka hore dadkii ay iska fududaysteen inay jawaabaan dadna ay sidaa uga raali noqdeen oo inay jawaabaan ay ku rikoorgareeyeen maya berigii hore waa la iska ilaalin jiray dadkii culummada ahaa oo culummadii islaamka ee ahlu sunna waljamaaca ee waddankeenna joogi jirtay diintana soo gaarsiisay ilaa jiil nebi maxamed laga soo bilaabay soo waday qof aan caalim ahaynin mas'alo ma jawaabi karin hadduu jawaabana tus baa la oran jiray meeshii ku taalo hadduu diidana xabsi baa la dhigi jiray ama dameera inta la saaro gadaal loo sii jeediya suuqa la mari jiray markaasaa makarfoon lagu naadi jiray masale habloo ku hadlayay waa gafayey masalo meel uga dhacay yaa la dhihi jiray hadda ceebna laga baqi mahayo cidnaa ku celinaysana lama leh cilmina lama hayo marka jawaabtaa ka soo horeysa cilmiga marka nabigu camalkanaga wuu arkayaa sala allahu calayhi wasalam asagaa soomay isniinta iyo khamiis markaasaa la weydiiyey maxaa u soontaa ali nabi allah wuxuu yidhi waa labada maalmood oo camalka ilaahay loo bandhigo waxaan rabaa yidhi anigoo sooman camalkayga in ilaahay loo bandhigo bandhiga marka camalka ilaahay loo bandhigayo rasuulkanagana camalkanaga waa la mariyaa sala allahu calayhi wasalam cid diidaysaana ma jirto xadiid iyo aayad leh waa la mariyaan hadda sheegaynaa soo ma ilaahay baa camalka arkaya rasuulkuna wuu arkayaa lama oran intuu nool yaha keliya nebigu arkaya aayad tiri lama hayo xadiid yirina lama hayo intuu nool yaha keliya nebigu lama hayo camalkanagu marka nebigu waa marayaa nebigu markaan mu'miniinaha wuu noo shafeecayaayo markuuna arko hadduu camalkii hallaysan yahay ilaahay buu hanuun nooga baryaa hadduu camalku wanaagsan yahana wuu ku farxa maxaa yeelay nebigu shafaacadiisu dadka kabaa'irta ahalkeeda ayuu shafaacada nebigu u sugnaaday sida xadiidka ku aragteen oo yidhi shafaacatii liahlilkabaa'ir shafaacadeedu waxaa iskaloo ahal awla u siiya dadka ahlulkabaa'irta macnaheedu waxaa weeye ummadiisa kuwii khalad badan gala hadduuba mu'min asagoo adduunka ka baxo shafaacada nebi maxamed buu galaa sala allahu calayhi wasalam xabiibkeenna maxamed ilaahay markaa ammaan badan baa ilaahay siiyey wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi allow kuma soo dirin adoo raxmada mooye si kale kuma aanan soo dirin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu u ahaa xayawaanka ayuu u ahaa naxariis wuxuu u ahaa geedaha wuxuu u ahaa dadka nebigu sala allahu calayhi wasalam dadku u ahaayo ilaah wuxuu yidhi waa kitaabkaanaan kugu soo dejinay litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur yaa allah waxaan kugu soo dejinnay qur-aanka maxaana uga jeednaa litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur dadka inaad mugdiga gaalnimada ka saarto aada nuurul iimaan aada u saartid dadkoo xayawaan ah oo isdila oo iscuna oo gabdhahoodoo nool aasa oo ayagu muxuu ahaa ninku islaanta aabihiis ka dhinta uu guursado ayaa nebiga lagu soo bixiyey sala allahu calayhi wasalam jahligiibuu ka saaray horumar buu gaarsiiyey mugdigii qalbiguu ka saaray iimaan buu u bixiyey xalaashii iyo xaaraamtii u kala caddeeyey waddo cad oo muxuu aha ilaahayna gaarsiisaa nebigu dadku ku hanuuniyey dadku khayr u ahaa nebigu marka sala allahu calayhi wasalam xayawaanka ayuu khayr u ahaa nebigu oo dee xayawaanku nebiga waan tegi doonaa xubbigaan ku tegi doona way jeclaayeen nebiga way imaanayeen way la hadlayeen geeduhuna nebiga waa la hadlayeen waa arki doonaa insha allahu tacaala marka nebiga ilaahay baa jeclaaday subxaanahu wa tacaala annaguna jacaylkaas ilaahay uu jeclaaday nebiga kaas uun baan raad raacaynaa haddii ilaahay idmo kaa uun baan raad raacaynaa waajib bayna nagu tahay inaan nebiga jeclaano sala allahu calayhi wasalam ilaahayna wuuna amray inaan ducayno nebiga mar walba inaan nebiga ku sallinno ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan nebiganaga sala allahu calayhi wasalam dadka ilaah iyo rasuul rumeeyow war nebiga ku salliya oo salaamaa la yidhi amarkaasi waajib weeye ma hal mar buu waajibaa culammadu waa yidhaahdeen
ma 5 goor buu 24 saac waajibaa waa yiraahdeen ma weligiisa waajibaya waa daa'im waa yiraahdeen midaa tiraahdo horta nabi markii magaciisa la soo qaado waajibaa ila nabi wuxuu bakhiil waxa la yiraahdaa man dukirtu indahu falam yusalli alayhi qofkii inta magacayga lagu ag sheego aan igu saliin bakhiil la yiraahdo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu naarta Allah ku fogeeyo qofkii inta magacayga maqla aan igu sallim naarta Allah ku fogeeyo jibriil oo aamiin de yiri markaasuu aamiin yiri nabi maxamed aamiin de jibriil yiri saasa u jeeda nabi maxamed aamiin de 3 goor watay ahayd oo si fuulay nabigu jara muxuu ahaa minbar si fuulay ibka 3 goor aamiin 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 buu kaasay maxaad aaminsatay rasuulka Allah jibriil ila hadloo yiri marka 3 shay ayuu yiri waxa kamid ah 3 shay qofkii inta magacaaga maqlo aan kugu sallin naarta Allah ku fogeeyo aamiin aamiin aan iriyo walaga yaabaa haddaan ila nabiyullaahi Muhammad ila qarbu shibaha banuuxin waa macquul muxuu ka cashaaraya ka baqaya Allahumma salli wa sallim taasoo ka cabsanaya garar iimaan Allah ma arka qalbigiisa hal wallah waa kaas maxaa yeelay sideedaba nacayb iyo jacayl wax u dhaxeeya ma jiraan naar iyo jannada looga dhaxeeyo qof inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahay uma dhaxeeyaan inuu iimaan leeyahay inuu gaal yahay uma dhaxeeyaan ala la iimaana liman la mahabbata lahu iimaan male oo nabigu qofkaan mahabbaba lahayn oo aan nabiga jeclayn iimaan male sida arki doona insha Allah ta'ala marka من أحب شيئا أكثر ذكره قف هدو شيء جعل يهي حسكي سو بديا سوما قف قد جعشها مرة واتكون واغيس فعل كيسا جعشها هذا الكيسا جعشها قول كيسا جعشها وحو سميه وراقة كوغار إلا سمي سنة واتعش مركز سيدا ساتشرتو ويالينا لكن يعني انت نبيك صلوات الله وسلام عليه ونبيك النجي لكن مجعل وكسر لي ما إنه وعرانينا oo xanuunsanayna oo daqdinayna markaan aragno daqdi baan dareemayna ciiri baan dareemayna markaan xuskiisa nimaado iyo meesha uu joogo oo looga hadlayo wax aqliga galaya ma ah iimaanna malaha aan soo qaadano horta nabiga sallallahu alayhi wasallam jinniga iyo insiga waxa loogu soo diray waxa la yiraahdo irsaalu takliif inta kalena waxa loogu soo diray waxa la yiraahdo irsaalu tashriif مثلا jinniga iyo insiga waa la xisaabtamaa markay qiyaamo joogaan ilaahay wuxuu yiri sanufriqu lakum ayyuha thaqalani wan idin la xisaabtami doonaayo wan muxuu ahaa amalkiina idin kula xisaabtami doonaa labada la cusleeyay ama la dhaga cusleeyo ama waxa lagu cusleeyaa takaaliif oo waa la mashaqeeyay ama waa la dhaga cusleeyay oo waa laba aad u amar diida badan labadaas waxa lagu soo diray takliif waajib ayuu dusha ka saaray nabiga oo loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam waajibkaas laga rabaa labana waxa lagu soo diray dad inta kale waxa lagu soo diray irsaalu tashriif nabiga lagu sharfay sallallahu alayhi wasallam laakiin ayagu waajib ma saara ciidan iyo dhulkan iyo caradan iyo geedahan ayagu waajib ma saara iyo xayawaan laakiin nabiga sharaf lagu soo diray sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed nabiga yaqaaneen nabiga salaamayeen hooyiri dhagax baan garanayaa oo nabigu geedaan garanayaa oo islaami jiray geeda salaami jiray nabiga midko khudbada ku akhri jiray baa booyi jiray markuu nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam khudba ku akhri jiray minbar ahaan ugu istaagay nabigu markii dambe minbar loo dhisay nabigu minbarkiibu fuulay geedkii hadda nabiga ka tagay sallallahu alayhi wasallam adwaxan umalayna ilaahay wuxuu yiri thumma qasat qulubukum fa yakal hijara aw shadu qaswa anni qulubti niba qalashay fa hiya kal hijara sida dhagax oo kale noqoto aw ashadu qaswa aw ayada ka dar wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbidu min khashyati allah dhagaxdu waxa la yiri isbedel bay keenta oo qaar ba biyo ka burqadaan cabsi ilaahay qaar ba meel sare ka soo dhaca laakiin waad ka liidataan adigu marka
qulubta qofka bini aadamka waa in xubbiga nabi maxamed ka muuqdaa sallallahu alayhi wasallam geedaha iyo dhagxaanta ayaaba naga ijaabo fiican mararka qaar markaad sii fiirisid subxaanallah nabiga sallallahu alayhi wasallam xayawaankoo dhan iyo geedaha oo dhan ayaa nabiga yaqaanay sallallahu alayhi wasallam sidaas dar aan sheegayno haddii waxaan u malaynayaa shay kastoo ilaahay abuuray ilaahay wuu yaqaan وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحه شيء ما جرى إلا إلهي بكو حمدي سبحانه وتعالى شيء صحيح هذا سوينا هذا ولكن لا تفقهون تصبيحه ولكن أذنكم متقانين أي إلهي بحمدي أو تصبيح صدا سبحانه وتعالى أذنكم ما قرأ ليس مركا شيء الأركا إلهي بيقانا رسول كي سنوي يقانا صلى الله عليه وسلم إلهي أصدره إلا شيطانك يقالك إنسيقا يقالك جنقا موي محبة رسولك مركة هدان وهي ركسي تعطابنا هرت النبي أمديس أصغى جعلا إلهينا وحي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبي أصغى أمد أوليس النفطة لما معنا للسيي معاني بدن بيلادها لكن لما معنا هذا كسو قادنينا نبيغا uga awleysan dadka min anfusihim ayaga nafafiyashooda inay nabiga ka jeclaadaan naftooda way dadku nabiga ka awleysan ayaga nafafiyashooda uga awleysan waa mid tan kale maxay tahay nabiga ayaan uga awleysan dadka nafaftooda oo maxay tahay nabiga naftiisa sallallahu alayhi wasallam ayaan ayaga qofka naftiisa ka jecel qofka mu'minka naftiisa waa jecel nabiga qofka mu'minka si jecel way macnaheedu nabiga qofka mu'minka naftiisa si jecel oo sidoo nabigu noo ilaalinaya ana aakhidun bihujazikum wa antum tufallituna wa yuri mathali wa mathalukum كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها أو بها وهو يدب أنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلطون أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحول الشبه بالنبي قلنا سمعي وحول مثلي ومثله أذينك إيا أنيق مثالك النقا وحال السورة منها كمثل رجل نن أوكالي dadka uu nabigu ku miisaalinay aw qadda naaran dab shitay dabka markuu shito marka waqtiga rababowda la joogo baa la yiraahdaa baalalay baa jirta ama haadi ama haraati geelle Soomaalida qofba uu magac bay ku fasiraane baaladaas waxay soo aadan iftiinka ayagoo isla meesha nuurka gaara dabkiina wuu gubayaa marka wuxuu arkay baaladii oo dabkii ku dhacayo wuxuu ku talagalay inuu ka celiyo marka ninkaas wuxuu dabkii uu ka celinayaa bahaladii ayagiina dabkii ku haadayaan marka wuxuu yiri anigu cadaabta inay dnaan ku dhicin daraadeed ayaa ninkaas oo kale la midahay oo guntiga dambaan idinku dhaganahay idinku waa iga farabaxsanaysaan naartaad ordaysaan uu nabigu sallallahu alayhi wasallam nabigu naartu ba naga celinayaa alayhi salatu wassalaam نجنا من هاوية يا زكي المنصبي مضى مغلب وقتها مولد الآخرين هاي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبي مركز سوروا كلمة دبضا بيريو قف كاسو إلهي وشريك يا سبحان الله سبحان الله وحيري رسولك إلهيو أنبيادك هو خير بدنايو والرن أنبياء نبي محمد أبو خير بدن صلى الله عليه وسلم وبلا خلاف طيب نجنا من هاوية نقلنا شيء بيري والنبي قدر محول لي نارا إذا كعلنا حتى معنيه سو نارتا إذا كنا إذا كعلنا يا نارتا اللي يكون معك لي وصل بجي صوما هذا هو حديث وحش شيء صوما يا نبي قلت قال إذا كنت جنه هذيك النار تكفر بحصليسا إن كان واحد كلام نجنا من هاوية أو أنا هدنا قرمة ما أنت قيامها لا تقول حديث كبخاري جاها
marka nabigu sallallahu alayhi wasallam dadku markay isku yimaadaan oo halka qof oo meel taagan 50,000 oo qofood ku istaagto lugtiisa oo u maleeya kaliya inuu taagan yahay hawlka iyo shidada haysata daraadeed dadku shafaacay raadsadaan waxay leeyihiin war waa baaba'nay qiyaamo carasaatul qiyaaman taaganahay yaa ilaahay nooga ergeeyay maanta oo noogu tago ilaahay oo dadkan hal kala xisaab oo waxay kala leeyihiin hal kala marsiin naar iyo jannaha loo kala qaado yaay kaasi waxay leeyihiin annaga iyo ilaahay wixii noo dhaxeeyay anbiyada ahay hadalka dhageysta culumaad Allah anaga ilaahay waxa noo dhaxay yiraahdeen anbiyada markii waxyi la soo dhiibayay oo waxyiga adduunka la keenayay qof walbaba ilaahay uma soo dirin nabi u gaar ah baalki asaga u gaar ah waxaan waxyi u gaar ah ayaan u jeedaa qof walbaba ilaahay wuxuu yiri ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حدان دونا أنه لآتينا وانسيرهين كل نفس هداها نفلا كهنون كذا نسيرهين نبي الآن إلهي كسيكرا سبحانه وتعالى أصلا عندنا كوسو مرينا كسيكرا بلا واسطة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم قول كيغا واجبي وأهدتك قارنة فريق في الجنة وفريق في الصعير قارنا إنه النار جنة قرب قارنا إنه عذاب تآل أنا تلقى إلهي سبحانه وتعالى سمرتي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك إلهي حدود الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا وعلى عالم كجواب نبا إلهي رضينها سبحانه وتعالى دو إلهي الدور سماركتي أفأنت تكره الناس ضدك ما ديها غصبك حتى يكونوا مؤمنين تبقى ما أنتوا ظهروا الضوء مؤمنين ما أذكر رعان وامي أدوكم ميالي كرتي قدك المركة نبي الله صلى الله عليه وسلم بحالة قربها حجة اللي أوجية نبي اللي أوجية ضدك وروح الله هي نبي يكون صادق سهد هر أصلا شيء ناقل marka waxay leeyihiin wixii noo dhaxeeyay annaga iyo